نبي الله إبراهيم نصب كنبي إبراهيم عليه السلام أي جلي دون إمك كدم بيا نبي الله إبراهيم أروى مقال لا يلابو كل شيء كلدانيين تهرار عراق أيو أها منطقة ذا وكل شيء وح آذ وقفا في وح العابد جري كواكبك حدقها أيو نجومك يا العابد جري أصنام فربضنا والعابد جرو أصنام يدو آد بي وقبضنايين نبي الله إبراهيم iyo nabiyullaahi luut way ka soo haajiri doonaan mantiqada kildaaniyiinta markay diinta ilaahay ay u sheegaan ee lagu diido ee la isku dayaba in iyaga laftooda jirdil lagu sameeyo la dilo way ka soo haajiri doonaan shaam ayay geli doonaan shaam ayuu nabiyullaahi ibraahim diinta ka faafin doonaa haddana uu ka bixi doonaa nabiyullaahi ibraahim oo dhulkii muqadaska ahaa ee falastiin ayuu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu geli doonaa nabiyullaahi luutna wuxuu u wareegi سدوم مقال الله يرايو جوردن أردن كتالا نبي إبراهيم عليه السلام حتى وحو قاري دون إلا مصر أيو قاري دونا إلا بقرض مصر يفراعنا ذي مصر دوت ديرو دعوذود أياك نحمر الدونتا نبي الله إبراهيم عليه السلام وكقد بدونا إلا مكة المكرمة أيو تقدونا إلا أبيت الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة وسجي إن كيسي نبي الله إسماعيل ayagoo isagoo aabihii caawinaya ay kacbada ay isla dhisaan marka sheekada nabiyullaahi ibraahim khaliilur rahmaan rahmaanka khaliilkiisa sheeko qiso badan baa ku jirta cibrado badan baa ku jira dhul badan ayuu maraya waa nabi dhul badan maray iyo ummado kala duwan la kulmay mashaakil iyo caqabad fara badan oo dacwadeed la kulmay diinta aad iyo aad u faafiyay dood dheer ka galay sidoo diinta u faafin lahaa dhibaato fara badan ay kala kulantay هذه أبو أصمري أدل قاتي امتحانات فربضن لمري إسحاق إنم كيسي إسماعيل عليه السلام يا إنم كيسي إسحاق عليهم السلام إنه كوض شاكين دون النبي والبقرة إنه كشاكين دونه مركا إنه بدن دو تاجنا إنه نبي الله إبراهيم دروس فربضن أيا كوجرتا مساحة أما وقت غير إلهي أوسيه كهذا الكيس أيارا كل سنة إسا إن نقول إن وقت غير إنه نسينه سين أفهنه نبي الله إبراهيم عليه السلام حل intee leeg ayuu ka soo baxay talaabo intee leeg ayuu jaray dacwada iyo diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala inagana duruus baa inoogu jirta hadaynu dadka dacwada wada hadaynu nahay ummadaha diinta loo sheegay hadaynu nahay dadka wax barbaarinaya intaasoo idil doodo fara badan oo aynu ka sheekayn doono ayuu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam aynu duruusta aynu uga qaadanayna hore waxaynu u sheegnay ku celinayna wali oo taagnaanayna سويال كتاريخ هذا بني آدمكم وسويال دينيت من نبي الله آدم بينك صوب بلونه إلا أنتو إلهي لك ونحله سبحانه وتعالى ضد الدين تلف دبر أي كأهد نولش آدمه أو حد يجير ما كلما هلك نبي إلهي النبي بكحج أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء reer bani israa'iil waxaa gadhwadeen u ahaa ambiyada ilaahay oo siyaasadda iyo madaxnimada u hayay yasuusuhum buu nabigu isticmaalay reer bani israa'iil waxaa siyaasadda gadhwadeen uga ahaa ambiyadooda nebiyadooda buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu nebi dhintaba ilaahay nebi kale ayuu soo saarayay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim sida aynu ambiyada oo dhan ka soo sheekaynay maadaama uu ku noolaa bii'a degaan sanamyada la caabudo ilaahay laga tagay subxaanahu wa tacaala kawaakibta iyo nujuumta ilaahay laga dhigtay subxaanahu wa tacaala baaqa koowada nabiyullaahi ibraahim weliba waxyaabaha aadka inoo sii taabanaya waxaa ka mid ah aabihii aazara siduu qur-aanku uu sheegay nebi ibraahim aabihii ayaaba ka ganacsan jiray iibinta sanamyada laga dhiganayo ilaahay duunkiisa la caabuday subxaana allah يعني بيتك ونبي الله إبراهيم وكسر بحي باقة وكبر أبيا قولي فما ما هو أبيه يبدأ أبيه مكبر أبيا أو سرميدا وأركي يسقى لك حنت قرية أو اللوحية قرية أو برت تومية هدونا أورانا يوا أصنام وسوق جينية أول يبسنية أول عابودية من دون الله تبارك وتعالى أمام إبراهيم نبي إبراهيم أركهيا هلكو كبر أبيا هوشة يباقيس يدواقيس توصن نبي الله إبراهيم وقريق كسو برباري يبدأ أبيه مكبلابيا تلكينا وكو حجسينيا إلهي وحيد سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي واذكر يا رسول الله نبي محمد الحص يعد الله لا عدي أخرية قرآن كانوا حصة
xilli uu ibraahim aabbihii aazar uu ku yidhi eeg sida uu weedha u caddahay atattakhidu asnaaman aalihatan ma sanamyo ayaad ka yeelanaysaa ilaahyo innii araaka anigu waxaan kuu arkaa wa qawmaka adiga iyo tolkaa aabbo fii dalaalin mubiin baadi cad inaad ku jirto marba haddaad sanam ilaah hayrkii aad ilaah ka dhigatay adiga iyo tolkaayna isku raacdeen arrinkaa eeg daacigu nebigu weedhiisu waa inay caddahay weedha nebigu waa inaanay mugdi gelin muxuu u jeedaa beerka jecliya xaydha jecliya kuwan raaligeli kuwan raaligeli kuwan ha ku jeclaadaan kuwan ha ku jeclaadaan cidiba yaanay ku diidina intaba isku wad weedh ambiyada ilaahay maha subxaanahu wa tacaala abadan ambiyada ilaahay warkoodu waa caddaa xaqana siduu u yahay bay u sheegi jireen liyaxyaa man xaya can bayina baatilku siduu u yahayna waa u sheegayaan liyahlika man halaka can bayina kii doonaya in uu iftiin iyo diin ku noolaado xaqa siduu yahaa loogu sheegi kii doonaya xumo iyo gaalnimo inuu ku noolaadana siduu u yahay baa loogu sheegi muxuu yidhi innii araaka aniga ra'yigaygu qofka mabda'iisu waa inuu qeexan yahay mabda'iisu waa inuu cad yahay sida cadceedda aanu muran uga jirin waa inuu qofka wax sheegaya ee ummad hor jooga wuxuu doonayaa qofka waa inay u caddaataa wuxuu diidayaana qofku waa inay u caddaataa qof aan garanayn wuxuu doonayo dee wuxuu diidayaan ayaan jiri doonin muxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim innii araaka oka aniga qowl mabda'aygu waxaan kuu arkaa aabbo wa qawmaka iyo tolkaaba fii dalaalin mubiin markuu intaa uu u sheegayo nabiyullaahi ibraahim aabbihii hadalka kuma adkaynin aabbanimadii ma diidin ma riixin ma yasin hadal qallafsan kulama hadal laakiin dacwaddiisii buu sheeganayaa bal isaga oo baaqiisiina gudbinaya kelmadba kelmadday ka macaan tahayna xulanaya bal ila dhegeyso ilaahay qur-aanka inoogu sheegay wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana sidiiqan nabiya wadkur ka sheekee oo xus في الكتاب كتابك نبي إبراهيم كشيكة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقف الله لقفك مغليو نبي إبراهيم وإنها كشيكة لنا درسي بكر لغانا مات إنه وحوها نبي إبراهيم صديقا مثل شيك بدن نبي إلهينا أذكر شيك حلي وكيري لأبيه آبه وكيري يا أبتي كلمة استعمالي يا أبتي بيقول آبو لما تعبد محاد عابد سا ما لا يسمع وحانكم مغليين ولا يبصر ما لا يسمع وحان مقلين وحبا ولا يبصر أو وح أركين ولا يغني عنك شيء وحنا أنك ترين وحال هذا المنطلقات العقلية والمنطقية وحو كل هذا وح أي وضع أركيان أي وضع أجيهين أون لديدي كرين وحما مقلو ويأجيهين واسنا وحما مقلي وحما أركو واسنا وحما أركيو هل كاسو تبيه تاجن يهيو عادي roob iyo wuxuu iska qaban karaa isaga wax iska qaban kareen inuu cid kale wax tare iska daayo walaa yughni anka shay'a uu sii wada wuxuu yidhi yaa abati aabbo innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tika aabbo waxaan helay cilmi baa isoo gaadhay adiga se aan weli ku soo gaadhin yaa abati haddaba fattabicnii iraac cilmi iyo yaqiin baan hayaa doodaan kuu sheegaya waa dood cilmi ku dhisan يقين بانا كدم بيجريتانك الله سنم كاسنا باطل إنه يهي علمي كاسنا أبا يا أبتي أبو إني قد جاءني من العلم وحيس من الله يجيمد علمي يقين كسوغن فاتبعني هذا أبا إراع أهدك هانكو هنونيو صراطا سويا جدك توسن يتبت صالحا هكو رده أبا إراع سلاس نبي الله إبراهيم أبيه وكل هذا أبيه محو جوابي قال وحو كير أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إبراهيمو مردك حانتا إذا سنمية إذا ما أنت أديدا انتهي لئن لم تنتهي هداد كجوك سمي ويدو لأرجمنك وانكو شيدي وهجرني مليا إيقفقو ميل أنجوغها بسو إستاقي ما سنمية إذا بديدي لك حانتا إله كو شيئا لدك على انتهي لكن كي آبايا شيبات كهور تمد عادة إذا بات جرتي أنك إذا وحانا نقرين إنه ولا تمد
dhagax baan kugu shiidi buu yidhi iga hor dhaqaaq nebiyullaahi ibraahim muxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi salaamun calayk nabadi korkaa aabba ha ahaato saastakfiru laka rabbii ilaah baan dembi dhaaf kuu weydiisan innahu kaana bii xafiya raxmaan ii jecel oo ii roon ayuu raxmaankaygu ahaa wa actazilukum waan idinka fogaanay aniguna idinka wamaa tadcuuna min duuni illaahi ilaahay hayrkii waxaad baryaysaanna waan idinka fogaan waadcuu rabbii ilaahay baan baryayaa oon ilaahay baan caabudahayaa casaa an laa akuuna biducaa'i rabbi shaqiya marnaba ilaahay inaanu iga dhigin ducadiisa iyo addoonnimada rabbi keligii u qiray kii ku hooga diinta ilaahay ku hoogi maayo dacwadda ilaahay kii ku hoogan noqon maayo diinta ilaahay inaan qabsado kii ku khasaara noqon maayo ha lagu diido ha lagu dhaleeceeyo ha lagu dacaayadeeyo ha lagaa fogaado adduunku cidhiidhi ha kugu noqdo laakiin mar raxmaanku haddii uu kuu ogol yahay waxaad wadaana diin mutaxan ay tahay dan gaara aanad wadin wax gaara aanad dadka u sheeganaynin casaa an laa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya raxmaankayga iyo rabbigay subxaanahu wa tacaala baryootankiisa iyo inaan addoon u noqdo kii ku hoogaya ilaahay igama dhiga mar aabba haddaad i diidday inaad ishiidday iyo dhagaxaad igu dishayna aad iigu goodisay wa actazilukum haddaba waan idinka tegi adiga keliya kaa tegi maayo wamaa tadcuuna min duuni illaahi ilaahay hayrkii waxaad baryaysaanna agteedu igu arki maysaan ilaah baan u dhaqaaqayaa biyu allah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim markuu halkaa uu laba kooxood ay kala noqdeen isaga iyo aabbihii iyo gaaladiiyo koox ah nebiyullaahi ibraahim kolka wuxuu caddaystay inuu xataa aabbihii keliya aanu ku eekaanine inuu baaqiisi fidiyo meelahay joogaan yimaado diinta ilaahay ka dhaadhiciyo doodooda uu dhegaysto shubhadahooda uu buriyo xaqa uu iftiimiyo diinta doodeeda uu caddeeyo ayuu nebiyu ilaa xil baa saarona waa nebi ilaahaye ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo oo inooga warramaya nebiyullaahi ibraahim xilkaa diineed sida uu u gutay wuxuu yidhi walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi caalimiin walaqad waxaa xaqiiqa ah wallaahiye aataynaa inaanu siinay ibraahiima nebi ibraahim rushdahu hanuunkiisa min qablu horeba nebi muuse iyo nebi haaruunba hortood nebiyullaahi ibraahim baanu hanuunkiisii iyo rushdigiisii siinay wa kunnaa waxaanu ahayn biyu alla bihi nebi ibraahim caalimiina kuwo og nebi ibraahim wuxuu yahay waan ognahay oo waa maxay tilmaamahaanu nebi ibraahim aanu siinay waanu ognahay hoggaanka aanu nebi ibraahim ugu talagalnay inuu mutaystay waan ognahay u diyaargarowga nebi ibraahim xil intaa leeg inuu qaado ummad dhan uu ka hor yimaado waanu ognahay soo noqoshadiisa iyo alla cabsigiisa nebi ibraahim waan ognahay dan gaara inaanu ku lahayn oonu isagu wax gaara iskugu yeedhayno isagu aanu lahayn dadku aniga igu xidhma ee uu leeyahay ilaahay keligii ku xidhnaada isagu magacdoon aanu ahayn maqaamdoon aanu ahayn sharafdoon isagu inaanu ahayn dadka wax ka dhexeeya aana jirin raxmaanka keliya ku xidhma ilooba aniga inay tahay wa kunnaa bihi caalimiin oo halkaa waxaa ku jirta tilmaamaha hoggaanka qofka qabanaya dee tilmaamo cad waa inay yihiin uu qofku cidduu hoggaan ka dhiganayo diin iyo adduunba tilmaamo uu ku og yahay waa inay noqotaa meel mugdiya oo mala awaal ah waa inaan maxay tolay qof aan la garanayn inta loo dhigo hadhow ummadda aanu kala tuurin jarka markuu ka sii dhacayana la odhanin ummaddu ha kacdo ha laga soo qabto dasoodigii adigu shalay adiga oo maqiiqan u dhiibay cid aanad garanaynin wa kunnaa bihi caalimiin qofka markaa taariikhdiisa siifiigiisa aqoontiisa wuxuu soo qabtay wuxuu soo gutay wuxuu gashaday intaasaa ummadda uga markhaati kacaysa markaasa odhanaya intaasaanu qofkan ku ognahay intaasaanu nala soo noolaa tilmaamahaasaanu ku ognahay waanu ku aaminaynaa diintayda iyo adduunkayagiiba waa kaa raxmaankuba leh ibraahim diin iyo caqiidaan ku aaminay maxaan ugu aaminay rushdigiisii iyo hanuunkiisii baan horeba u siiyey laba wa kunnaa bihi caalimiin halkaasuu nebiyullaahi ibraahim bilaabay doodiisii إذ قال لأبيه وقومه ما هذه تماثيل التي أنتم لها عاكفون حس حلي ونبي إبراهيم آبه يقومك وكيري ومحي دغحيدان يا سنميدان آد أو كوكر سوغنتهينات كد العابد سانة ضرفر فردان جواب تودي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وحي وروا محي دغحيدان أد إلهي غيرك ربك دغتين
may qeexin dhagaxyadu waxay yihiin ee maxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waxaanu helnay aabbaa'anaa aabbayaashayo lahaa sanamyada caabidiin iyagoo caabudahaya waa taqliid aabbaa samayn jiray daliil ma aha awowgay baan ka soo gaadhay daliil ma aha dadkaasaa u badan daliil ma aha weligaya waanu samayn jirnay daliil ma aha daliil ma aha daliil cilmi ah ma aha daliil sharci ahna ma aha nabiyullaahi ibraahim markuu la dooday tolkii ee uu ku yidhi waa maxay dhagaxyada aad u fadhfadhidaan may qeexinoo ma odhan wayna arsaaqaanoo waxbayna siiyaanoo may odhan mana odhan karaan ee maxay yidhaahdeen uun aabbayaashay baanu ka soo gaadhnay innaa wajadnaa aabbaa'anaa lahaa caabidiin xukunkii nabiyullaahi ibraahim iyo doodiisii wuxuu yidhi qaala laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin haddaba haddaad aabbayaashay baa dhagxantan dul fafadhiyay annaguna waanu dul fafadhinayna daliil idiin tahay idinka iyo aabbayaashiinba jid cad kuma idin sugnayne baadi baad ahaydeen buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin ma xaq baad waddaa nebi ibraahiimo waxaad noo sheegaysaa ma xaq baad mise waad nala ciyaaraysaa ma kaftan bay kaa tahay dhagaxyadeedana aad ka soo hor jeeddaa mise xaq cad ayaad waddaa dhegayso nebiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi qaala bal rabbukum rabu samaawaati waalardi aladii fatarahun wa ana calaa dalika min ciyaariga ma aha oo kaftan ma aha dhagaxyadan aad caabudaysaan sax ma aha qaala bal rabbukum rabbigiinnu waa rabu samaawaati waalard cirka iyo dhulka rabbigii abuuray ee mulkiga u lahaa ayaa idinkana idin rab aladii fatarahunna rabbigii bilaabay ee abuuray ee sameeyey isagoon cidna kaga dayan sawir meel uu ka qaatayna aanay jirin isagaa abuuray alxamdu lilaahi faatir الsamaawaati wاlardi jaacili اlmalaa'ikati rusula ulii ajnixa mathnaa wاthulaatha wاrubaac yaziidu fi اlkhalqi maa yashaa ilaahaas ayaa idinkana idin rabbi ah wa ana calaa dalika min ashaahidiin aniguna kuwa ka marakacaya qiraya rabu samaawaati waalardi inuu rabbi yahay fatarahunna isaguna abuuray idinkana idin abuuray ayaan ka markhaati kacaya intaasi waa doodii afka nebiyullaahi ibraahim markuu afka ku gutay xilkiisii diineed wuxuu bilaabay gacmaha iyo adimahana inuu ku guto xilkiisii diineed wuxuu u soo galay meeshii ay sanamyada ku aruurin jireenee macbadkii ugu weynaa buu soo qaatay gudinna wuu soo qaatay markaasuu iyaga oo maqan ayuu gamta u istaagu wada jajabiyey wax allaala wixii sanam ahaa meesha qiطac yar buu ka dhigay judaadan ayuu ka dhigay kii ugu weynaa markuu sanamkii ugu weynaa markuu soo hor istaagayna wuu daayo guduntii ayuu u suray si ay hadhow toole ay u weydiiyaan oo su-aashu ay u noqoto waxan maxaa dhacay isaguna hadhow uga jawaabo waa markii uu ka soo tallaabsaday maxay doodii afka ee afku ay qaadatay xilligeedii ay qaadatay diinta marna afka lagu gudbiyaa oo dadka loo sharxaa marka ay qaataan ay ku dhaqmaan inta diidda inay diinta ilaahay ku dhaqanto diinta ay la dagaalanto ummaddaa diinta islaamka qaadato ee ku dhaqani gacan inay qaadaanna ilaahay waa u adimay subxaanahu wa tacaala diinta islaamkana laf dhabar bay u tahay markay xilligeedii iyo goorteedii iyo taagteedii iyo tamarteediiba ay gaadhaan waa waajib sharciga in gacanta diinta islaamka lagu oogayo inta hore o dhan afka iyo fahamka iyo dacwadda iyo baaqa iyo sharxiga ayaa lagu waday watallaahi wuu u dhaartay maalintaa ilaahay baan ku dhaartay laakiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin markaad maanta iga jeedsataan bal sanamyadiina waxaan ku sameeyo waad arki doontaan fajacalahum sanamyadii wuxuu ka yeelay judaadan dhagax yaryar wuu wada jajabiyey ilaa kabiiran lahum sanamkii ugu weynaa mooyaane lacallahum ilayhi yarjicuun bal inay isaga u noqdaan likay isaga ay ugu noqdaan laba tafsiir bay culammadu saareen lacallahum ilayhi yarjicuun inay markay soo galaanay sanamyadiiyo wada burburay arkaan inay yidhaahdaan ka weyne isagaa hinaasayoo isagaa burburiyey sanamyadii yaryaraa ama lacallahum ilayhi yarjicuun inay nebi ibraahim u soo noqdaan oo yidhaahdaan war waxaan markii horeba dhagxan bay ahaayeen sidii aad noo sheegaysee iminkana waad iga digada ka dhigaye dee diintay adigu aad wadday noo keen noo sheeg labadaaba tafaasiirta culammadu way saareen lacallahum ilayhi yarjicuun aroortii bay macbadkii soo galeen si ay dhagxantii ugu foorfoorosadaan waxay arkeen dhagxantii midba ka nooleen sanamyadii mid keliya mooyaane qaaluu waxay yidhahdeen facal hada biaalihatina inahu la min alظaalimiin qofkan burburiye jajabiye dhagxanteeda waa dhaalimiinta qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waxaanu maqnay fatan inan yar yadkuruhum oo xalay u dhaaranahaya yuqaalu lahu ibraahim yarkana ibraahim baa la yidhaahdaa
qaaluu waxay dhahdeen fa'tuu bihi noo keena waa ninka soo qabta calaa acyuni nnaasi dadkoo wada arkaya lacallahum yashhaduun dadku ha mara kacaan ninkani inuu sanamyada iyo dhagxantii naga burburiyey ilaah hayrullaahi aanu caabudayno degada inuu ka dhige war ninkaa la soo qabto waa loo yeeray nebiyullaahi ibraahim doodii bay fureen qaaluu waxay yidhaahdeen a anta facalta haada biaalihatina yaa ibraahim waxan maadaa dhagxantaydii ku sameeyey qaala wuxuu yidhi may wuxuu yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun koodii ugu weynaa waa kanaa sameeye bal weydiiya bal hadduu idinla hadlo idin jawaabi karo farajacuu ilaa anfusihim markuu yidhi dhagaxaasa waxaa burburiye bal weydiiya naftoodii bay ku noqdeen faqaaluu inakum antum alظaalimuun iyagii baa is yidhi war waad qaldanaydeen dhagaxaan hadlaynin dhagaxaan waxba maqlaynin maxaanu weydiinnaa muxuuse burburini waaba dhagaxe waxay isku qireen inay dhaalimiin yihiin ثuma nukisuu calىa ru'uusihim kadibna dibdib bay madax bay u hoobteen oo waa maxay xaqii ay garteen bay ka laabteen oo ka noqdeen laqad calimta maa haaulaa'i yantiquun ma dhagax baadna leedahay ibraahimow la hadal soodigoo og inaanay hadlaynin iyagii baa isku qiray dhagaxan inaanu hadli karaynin qaala ibraahim wuxuu ku yidhi atacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shayئan walaa yadurukum hadda ilaah hayrkiima waxaad caabudoon ilaahaad ka dhigateen waxaan dhib iyo dheef midna idiin ahayn eed ilaahay ka dhiganaysaan dhegayso xukunkii ilaahay xukunkii nebiyullaahi ibraahim siduu uga dhaqaaqay markuu caddeeyey xujadii uu ku oogay uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni uf baan idhi buuri idinka iyo ilaahay hayrkii waxaad caabudeenba idinka fogaado idin diiday afalaa tacqiluun war miydaan caqli lahayn buu le ibraahim subxaanahu wa tacala ibraahim miydaan caqli lahayn buu calayhi salaam ma waxaan maqlaynin oon arkaynin oon hadlaynin oon waxba iska celin karayn oon idinka dhib idiin haynin oon dheefa idiin haynin ayaad raxmaanka ku bedelateen subxaanahu wa tacaala markuu afguraye nebi ibraahim gam markuu ka siiyey uu afkii dhamma wax allaala wax ay ku hadlaanoo xujo ih ay uffin lakum uu ku yidhi walimaa tacbuduun maxaa hadhay gacanka hadal bay iyaguna bilaabeen waxay war ninka haynu dilno oo si adagu dilno oynu gubno god weyn qodno xaabada ugu waaweyn ku gurno dabku ilaa cirka ha isgaadho shimbiraha kor maraya ha ku soo nebiyullaahi ibraahim haan dilna calayhi salaam ay yidhahdeen qowlan waaxidan laanna xujo waa iskaga celin kari waayeen way iskaga qaban kari waayeen cilmi daliil way la iman kari waayeen aftahnimo nebiyullaahi ibraahim lagu muquuriyo waa la waayey qofka dacwadda iyo diinta ilaahay wadana dadka is hayaanay inta hore o dhan af baa lagugu qaban af baa la dooni in la iskaga kaa celiyo waa lagu dacaayadayn wax walbaa lagugu samayni marka waxba lagaa qaban kari waayana gacan in wax lagaaga qabto ayaa iman doonta maxay yidhaahdeen gaaladii nebiyullaahi ibraahim xariquuhu guba isaga nebi ibraahimba guba oo maxaad u gubaysaan wansuruu aalihatakum dhagaxyadeed ilaah hayrkii caabudayseenna u gargaara oo u gurmada in kuntum faaciliina haddaad tihiin oo diyaar u tihiin gurmad diintiinii u gurmanaya war ninka guba nebi ibraahim calayhi salaam dee adduunka mayagaa ka taliya adduunka mayagaa maamula miyaanu ilaahay maqlaynin miyaanu ilaahay arkaynin miyaanu ilaahay latiif ahayn miyaanu ilaahay khabiir ahayn miyaanu ilaahay samiic ahayn miyaanu ilaahay basiir ahayn subxaanahu wa tacaala dhegayso markay ku sii intay xidheen markay ku gameen ay ku tuureen xaggii dabka markuu sii socday ayuu ilaahay la hadlay qulnaa waxaan idhi buu yidhi halkaasuu attadakhulu ilaahiy halkaasay ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisii iyo nasrigiisii iyo gurmadkiisii soo dhex galay qulnaa waxaan idhi buu yidhi allah yaa naaru dabow kuunii noqo bardan qabow wasalaaman nabadgeliyo calaa ibraahim inay gubaan bay dooneen qabow u noqo inay dilaan bay dooneen nabadgelyo u noqo wa araaduu bihi kaydan dhagar weyn ayay la dooneen fajacalnaahum alakhsariin iyagaanu ka yeelnay kuwa khasaaray buu allah subxaanahu wa tacaala markaa diintaada aad si saxa u gudbisid eed u hagar baxdid ee wakhtigaaga iyo cumrigaaga aad gelisid eenad waxba ka doonin laa as'alukum calayhi min ajir waxba aanad kaga doonin
mukhlisna aad ku tahay dar ilaahay aad ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kaydka iyo dhagarta inta diinla dagaalanka ah ilaahay waa kaa qabanaya subxaanahu wa tacaala ilaah baana noloshaada gelinaya qabow iyo nabadgeliyo kuwa dhagarta badan ee diinla dagaalanka ah ilaahay wuxuu ka dhigaya fajacalnaahum alakhsariin kuwa khasaaray ayuu ilaahay ka dhigaya subxaanahu wa tacaala ilaahay waa badbaadiyey maalintaa weyn ilaahay nabiyullahi ibraahim waa badbaadiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wanajaynaahu saasaan ku badbaadiyey waluutan nebi luutna waan badbaadiyey halkeengey waa markay haajirayaan markaas halkaasay ciraaq iyo ka imanayaan gaaladii iskaga soo baxayaan ila alardi alatii baaraknaa fiiha shaam oo markay imanayaan dhulkii shaam een barakaynay een caalimiinta oo dhan u barakaynay ambiyo badanna ay ka dhalan doonaan barwaaqo iyo dhul qabowna alla uu siiyey nebiyullaahi ibraahimna shaam buu degahayaa nebiyullaahi luutna saduum magaalada la yidhahdo joorda ku jirta ayuu maxay toolay degayaa halkaasuu iskaga yimid nebiyullaahi ibraahim ciraaq gaaladiina halkaasay ku soo kala dhaqaaqeen ilaahayna ku soo badbaadiyey nebiyullaahi ibraahiima calayhi assalaam ku khatimi doonaa haddii ilaahay idmo ibraahim yabni alkacba wa yucaawinuhu ibnuhu ismaaciil deedna nebiyullaahi ibraahim maka ayuu tegayaa beytullaahi alxaraam makkata almukarama ayuu bilaabayaa inuu nebiyullaahi ibraahim dhagax dhigo oo uu dhiso oo inankiisii ismaaciilna kalkaaliya isaga caawiya ayuu u noqonayaa qur'aanka ayuu ilaahay taariikhdaa ku qoray si ay abadal aabidiin ay u jirto wadkur waid yarfacu ibraahiimu udkur yaa rasuula allah nabi maxamed uga sheekee qof kastoo maqlayowna ka sheekee xilli yarfacu ibraahim uu rafacayu kor u qaadayo alqawaacidka guryaha tiirarka min albeyti tiirarka guriga beytullaahi alxaraam uu ku dhisan yahay uu kor u qaadayo wa ismaaciiluna yarfacu alqawaacid aabbihii caawinayo iyagoo gurigii dhisaya oo tiirarkii kacbada taagaya oo gurigii kor ka yeelaya ayay ducadana ku dareen rabbanaa rabbigayow taqabbal mina naga aqbal guriga aanu daraaddaa u dhisayno innaka adigu waxaa tahay anta samiicu alcaliimu kii wax maqlayey ee aqoontiisuna xeel dheereed ayaa tahay ducadii buu sii watay nebiyullaahi ibraahim rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni laka aniga inankayga laba muslim rabbow naga yeel wa min duriyatina ubadkayagana waxaad ka yeeshaa umma muslima iyagana ka yeel wa arinaa rabbowna tus manaasikana sidaanu xajka u gudanana tus watub calaynaa noo toobadkeen innaka anta tawaabu raxiim waa kaa ducadii nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay una leeyahay adigu ducayso ubadkaaga u ducayso duriyadaada u ducee waa kii ducadii cibaaduraxmaan ahaa rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama nebiyullaahi ibraahim wuxuu dhalay nebi ismaaciil hooyadiina haajar bay ahayd maka ayay ku noolaan doonaan waynanu ka sheekayn doona nebi ismaaciil markaynu gaadhno kadaalika nebi ibraahim wuxuu dhalay isxaaq ayuu dhalay wabasharnaahu biisxaaqa nebiyan min asaalixiin isagoo da'ah ayuu ku dhalayaa nebiyullaahi isxaaq dee nebi isxaaqna yacquub ayuu dhali doonaa reer yacquubna reer bani israa'iil oo dhan ayaa u abtirsiiman ka farcami doona nebi ismaaciilna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka abtirsiima noqon doona oo ka dhalan doona maxaa inoogu jira sheekada nebiyullaahi ibraahim maxaa inoogu jira kow nebi ibraahim weedhiisu way caddayd hadalka lama ag istaago warkaagu ha caddaado ummadda aad la hadlaysaa yaanay ku garan waayin goorta ay kuu baahdaanna weedha dheh hadalka dib ha u dhigin maalinta lagaaga baahdo mowqifkaaga inuu caddaado wuxuu doona ha la ahaadee dheh daalim ha ag istaagin madluumka la dulmiyey raac tuugga ha raacin ka la dhacay raac xaqa ag istaag baatilka ka fogow warkaagu ha caddaado siduu nebiyullaahi ibraahim bal muxuu yidhi ina addiina cinda allaahi alislaam ilaahay agtii waxaa ka diin uun ah diinta islaamka diin kale oo lala tartansiin karaa ma jiro addaaci ila allaahi nebi ibraahim ku dayo kada adiguna dhexdhexaadka labadaba ha isku wadine xaqa siduu yahay u sheeg cid ku raacda waayi maysid cid ku diidana waayi maysid laba miyaanu nebi ibraahim warkiisa caddaynaysa xilli uu yidhi id qaala lahu rabbuhu aslim xilli uu rabbigii ku yidhi isdhiib oo hoggaansanow oo muslim noqo muxuu yidhi nebi ibraahim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin
رب العالمين تان اسكو ديبي أمر كيس عقيدة ديس أخلاق ديس معاملات كيس عبادة ديس شرائع إلهي إيشاغ أو إذل أيان أهجان سنة ربي وهي ما هالكاسو كغهري مي نبي الله إبراهيم وقصي دردار وبد كيسي بيوري حلكي دينين هي إيغا نحلة أوسي وضا ووصى بها إبراهيم بنيه نبي إبراهيم وحو كلا دردار وبد كيسي ويعقوب نبي يعقوب وبد كيسي كلا دردار دين تحل كذا إلي قادان دردارك وامحي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكاحلك الدين وبدكيجيو إلهي دين إسلام كو إذين دورت دين تكلية نبتا إنا النقطة حد مننا إلا إذنك أو مسلمين صحابي ينوي محمد وحير وحن أهدي كلا قلون دار كلا قلون بيعب كلا قلي إنا ننقو إن أنيقو تاغن مو يعني بمعنى ميل دين لوغو قرمنا إنا نبرك أجيدين diinta inaanan ka noqonin ahdigaasaan kula galay buu nabi maxamed ku yiri sallallahu alayhi wasallam saxaabigaasi nabi ibraahim iyo nabi yacquubna ubadkoodii iyo durriyadoodii iyo dumarkoodii iyo dadkoodii waxay ku leeyihiin inna allaha ilaahay istafaa wuxuu idiin doortay lakum idinka addiina diinta ilaahay falaa tamuutunna ha go'ina oo ha qaadanina diin aan diinta islaamka ahayn ayay tahay halkaasi waxa inoogu soo arooray ونوغو سو دمaaday sheekadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sidoo quraanku inoogu xakeeyay iyadii oo kooban xikmadihii ku jiray iyo fawaa'idkii ku jiray sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala jamii'il anbiya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh